السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حرجين إن شاء الله إن شغلين يدخلوا هذا حوايا ولسوق قليل عشان إلى ما أنت هذا اللي قانون DRC أما دانش ريفيوجي كونسل وإنجو عالمية وحياة بدن كشقية شغلين دورة بسوا حيسي هذا اللي قانون بلد ويني wuxuu uga baahan yahay shaqaale dhanka hygiene promotion officer baa looga baahan yahay beledweyne Soomaaliya marka inta badan uu ka shaqeynaya qofkan hygiene promoter ka ahi mashaariicda wash program loo yaqaano iyo host community ama IDPs ka dadka loo yaqaano ee marka ka soo barakacay meelaha kala duwan kuna sugan goobta mashruuca uu ka hawlgalayo sidoo kale qofkani waxyaabaha biyaha ay ka mid yihiin iyo hygiene kitska iyo dawooyinka iyo wixii la halmaala waa qof profile gareyn doona ama arrimahaasi ku shaqeyn doona waxyaabaha kale waxyaabo badan oo ka muhiim ah jiro kale iyagu dad ka shaqeynayo badan aan garan kartaan qof hygiene promoter waa relevant wash program toos ugu xiriya qofkaasi si markaa qofkii daneynaya ee raba in beledweyne ka shaqeeyo gaar ahaan DRC raba inuu shaqeeyo shaqadaasi ha apply gareeyo shaqadaas waa shaqo iska fudud ma adka khaasatan dadka fahamsan caafimaadka iyo arrimada fahamsan bay u fiican tahay linkiga shaqadana insha Allah xagga hoose videoga ma soo dhigi doonaa sida balaanku yahay experience ba qofka looga baahan yahay inuu u yeesho marka waxyaabaha laga rabo oo ay ka mid tahay relevant field kan oo kale waa qofku u leeyahay way aragnimo gaaraysa ilaa 2 sano qofkan waa inuu haystaa degree adeeg waa inuu degree haystaa dhanka environmental health ka behavioral science ka and health education ka and promotion or public health fiilka noocaas waa inuu jaamacadda kaga soo baxay ومركا aqoon u leeyahay sidoo kale waa inuu strong understanding u leeyahay ama haysta basic training on or in wash programming waa inuu kala soo qaadan participatory training methods hadda maqasho participatory training means waa inclusive ay laga hadlayaa inuu tababarkaas yahay inclusive oo si fiican faahfaahsan dadka marka hadda koox la sugo ummadda kamid ah waa in la iska wada dhaxarko together in one picture sidoo kale waa inuu ku fiican qofkaasi community mobilization and networking since wash programku dadka u adeegaya marka target community-ga sida balki IDPs ka iyo host communities ka waa in dadka marka qofkan uu mobilize gareyn karaa oo wax badan ka qaban karaa akhri dhamaan shaqada xarinin before you try inaad akhrido isku day marka okay contract laga soo xawayaan 10 months ee lagu baahan yahay sidoo kale date-ka uu marka uu bilaabayo March sida balaanku yahay 20ka February baa shaqadan qofku insha Allah uu apply gareynaya soo meel uu deadline ku xirmaya shaqadan lagu dirmay by email waxaad booqanaysaa marka qaran jobs iyo meelaha kale soo galiiba ama linkiska aan soo dhigi doono xagga hoose raac baadayna aad ku barto qornay apply here ku dhufo insha Allah kadib waxaad heli doontaa linkiga rasmiga ah sidoo kale waxaan wali jirnaa hygiene promoter kiyo sidoo kale boss la mid ah waxa laga rabaa muqdisho laga rabaa halkii hore beledweynaha sidii si leeg baa shaqadana waa isku wada mid waxba kuma kala duwana sida balaanku yahay waa isku wada mid same saddex boss baa looga baahan yahay meelo kala duwan date waa isku wada mid sidoo kale waxaa looga baahan yahay protection team leader baa looga baahan yahay beledweyne protection team leader baa looga baahan yahay beledweyne marka if you are going hadda doonaysaa team leader ka noqoto
waxa qofkaasi uu ka mas'uul noqonayaa ama uu lead garan doono implementationka activity-yada mashaariiceed ee DRC ka wada meesha oo ay ka mid yihiin mashaariicda la xidhiidha arrimaha GBV-ga, prevention and response-ka, child protection-ka, protection mainstreaming-ka, awareness-ka, wixii la halmaalo dhan dialogue set up-ka oo kala ka mid ah. marka qofkii raba shaqadan inuu xareysto oo ku wanaagsan team leader-nimada waxa laga baahan yahay aqoon ahaan oo reporting baa kula jirayo arrimaha report waa ku fiican tahay reportida gaar ahaan kuwa donors-ka loo dirayo waxa laga baahan yahay aqoon ahaan 3 sano waa aragnimo iyo bachelor degree social science-ka lawga public health-ka previous experience-ku ururada Soomaaliya ka shaqeeya dad leedahay ka sii wanaagsan sidaas leeg insha Allah sidoo qorshu yahay shaqooyinkii waa shaqooyin lamaan oo la soo wada xaysiiyay marka kuwa laftigooda hadii la ka dhigo try best inaad xareyn karto sidoo kale fursad kale oo ka jirta Muqdisho oo iyadu tii ugu horeysay iyada aan arko oo ah 3 macallin quraan iyo hal murabbiyad ah ayaa laga rabaa Muqdisho oo waxa rabaa Turkish private schools baa rabaa marka waa shaqada wanaagsan qofkii quraanka ku wanaagsan tarbiyada ku wanaagsan oo arrimaha ku fiicnaan kara quraanku kulli laftigiisu day shuruud leeyahay laftigiisu marka hadii macallin quraan noqoto wax badan baa laga baahan yahay waxa laga baahan yahay warqad codsiya oo CV-ga codsadaha laga baahan shahaadooyinkii heerka koowaad ee laga baahan transcript-kii baa laga baahan yahay 12 February baa shaqadan ay ku ekaan doontaa si balaanku yahay insha Allah hala xareysto iyadana waa Muqdisho hay'adda UNFPA la yiraahdo oo garan saaro hay'ad qaramada midoobay garow waxay uga baahan tahay GBV analyst uga baahan tahay marka UNFPA oo hay'adda UN-ta shuruudaheeda oo dhan dhameystiran hadii la ka dhigo way farbadan yihiin aad u farbadan yihiin linkiga soo gelinaa insha Allah linkiga xaq oo soo dhigi doona insha Allah hal raaco hal waa amal fal hadii la ka dhigo marka UNFPA ka hadlayo shaqooyinka soo naadiso kale waxa kamid ah GBV-gan waxa laga baahan yahay garow qofka GBV-ga analyst-ga UNFPA waxa hal boos waxa uga baahan tahay Hargeysa iyo Garowe Baydhabo sidoo kale waxay u baahan tahay oo Muqdisho looga baahan yahay GBV ama IMS National Coordinator ay uga baahan tahay Muqdisho Soomaaliya GBV-ga qaar baa hadina fahmayno wax weeyaan waa gender based violence tacadiyada jinsiga ka dhanka weeyaan ay u baahan tahay waxa kale ay u baahan tahay GBV information management analyst u baahan tahay UNFPA Muqdisho marka dhowr ka shaqo way soo xaysiiyeen keep in mind insha Allah inaad maaragto qof walba isku dadayna xareyso dilaa ka dhigo shaqooyinka thank you very much